في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aniya kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aaminay husuusnaw arbacada habeenkii 4 sac markay tahay aynoo ahaatee aaminay husuusnaw amarkan ku fara iyo arbacadii doorashadii koonfur galbeed ilowde isniin miyaan ka dhiganaa buda ehedi asnin toona malnin sheegna sadasabta tumanishan tumani asnin tumani todoba talaa tumani siyeed arbaa tumani sagaalana nin sheegi wariya waana arbaayu warnimayo doorashadan koonfur galbeed maalintii koobaad lagu ballam arbaa ahayd maalintii labaad 28 arbaa ahayd maalintii saddexaad 5tii bishan arbaa ahayd shalana waxa la isku qabsaday 12 aan ka dhigno iyo 19 aan ka dhigno waana laba maalmood arbaa ayaguna marka waxaan la yaabanahay bacadaan ma dawladda arbaa ay u sheegtay masaayaka xaafad kale to arbaa ay leeyahay haysta ana garta arbaa lagu tilmaama inay tahay mid foolada waxaan maqli jiray arbaa bil u dambeys weelasha waa la daboolaa war Abu Xuseen oo Faarax wuxuu yiri ma ogtahay adduunyada axad baa la taagay adigana isniin baa jacayl kugu abuurmay arbaa sidaadii anan lay abaar marka cudurka arbacadu hadda ma bilaaban waligeed dad baa qabay aryaasiyada feebaraaya farmaajo la doorta arbaa aheeda ama aad ogtihiin ra'iisul wasaare Khayraaba arbaa la magacaabay nimanyo war xukuumadda Khayraaba arbaa la magacaabay lana ansixiyay anigu reer koonfur galbeed iyo dad iyaga mucaaradka waxaan kula talin lahaa arbaa iyo nabad iyo nolol la tartaman ayaga iskale kulli man arbaa yawm asalaam wal hayat aryaa arbaa iyo hayat naxa isu keena hayat waa qande warnimiyo ani warsiin haaye baydawa maylaray lama bagol oo iidan ay wad diglikasi gudoomiyi laga kalsoonay ee baarlamaanka maday mursalna doowi may baaray un iidankii aaw shariif nin ku tabiyaniin rooga lankii iidamadaas iidan kala ka kordara uu si walaagi meeli ka dhiigaaday wari mas'uulidiyo aw eedan midoona hadali usuna may aray iidanka baydaw lisheeni shaka wiima ka gobnaari erin gabalka oodana waraaba madaga tusihan dhigaaga no teegan ari wasiirka warfaafinta ugaasasnowna may baaray iidanku uni dalbani ki reed baydaw xaalad yeemay maro hayte waraa jira doone wiiskale hayeere waraa jira doone aroosaas baahina waxa waaye warkaaga ma yeele weyro xooga dhaafe warkaaga ma yeele war waxaan la yaabay Axmed Madow baydhabo maxaa ka galay warnimay horta doorashadan baydhabo waa lagu wareeray maalinba sidii dib loogu dhigayay mar horena anu waa idin sheego waxaan idin doorasho degdeg oo lagu kala baxo hadaad rabtaan adaada geysta war aan hal tan adaada to mustaqbalka fadoohaye ma una faala dhigdaan arbaaho baniin sheegona dabaka haana faalki faruurta weyn lahay fadila saarayo fadha war saas ma ahana Saciid Gacme wuxuu yiri falaartii hawada loo ganay uun ku filanayay halka ay ku fool leedahay foota dhiganayso fidna wadaha waa inay dishaafaalka baas dhigay war hada anigay dhageyso hogaasana ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weydeen hadba daman idin dhigan naabkiinu soo dumay inaad dalaq tiraadaan badaladiina ali sugulle wuxuu yiri faruur dhabatay hay ku filqtame maxaa ku dhiman oo lagu dhahaa war waa dhamaade maxaa ku dhiman oo lagu dhahaa war waa dhamaade maxaa ku dhiman oo lagu dhahaa war waa dhamaade ikhiyaaray waxa la yiri baarlamaan buuq iyo khilaaf looga kala bayray waagii bariyana sii damqiya shacabka boogtiisa oo ruux beeniya waba iyo hoog bilaayo moosaw noo badbaadi bahe balaayo hadday moosta biyo baranka buura ka dheegay xaad u dhahdaan barjahaydan kale dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka baxeen xilligii wax laga maqli jiray war xumo tashiil way garteen dantooda nabad iyo nololna way ku noolaanayaan war gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal maanta uu digso yiri intoo maqnaana baarlamaanka buuq baa ka taagnaa xildhibaanaduna mucaarad iyo muxaafid sida ilmahooda u timid ayay ka hortageen marka ama sidii laga filay ayuu noqon doonaa ama xaajada la isku hayo ayuu hoos u eegi doonaa warnimo
warnimada hala waxaan daawaday madaxii kastamka dekedda muqdisho axmed cabdullaahi samow oo xaflad wasaaradda maaliyaddu qabatay ra'iisul wasaaruhu ku guddoonsiiyey shahaado sharaf wuxuuna ku mutaystaa leeyahay howlkarnimo iyo hufnaan iyo kororka dakhliga kadibna musuqa loo soo xiray oo xabsiga dhaxuu ku jiraa wasaaradda maaliyadda guddiga ku eedeeyay musuqana waa la kala diray iyagoon la baarin waxay sheegayaan run iyo been xagee marka wax si ka yihiin miskiina miska la fuulale miya warniyow ragna way isgediyaa geelna waa galgashaa dadoo dhammina sanadkan miskiinu wada noqday ayaan lagugu darin samow inuu marna saxnaa marna khaldamay soo ma dhici karto guddiga maaliyadda la kala dirayba waxay sheegeen inay sax ahaayeen soo ma dhici karto adeerow anigu halo waxaan dhegaystay mustafa cagjar madaxweynaha soomaali state wuxuuna yidhi waxaa qasnugu wada dad kala jooga somalilan jubbaland iyo puntland mugga waxaa la yaaba haddii ilmalaan kali goor qaskaan ay wadaan xow yahay mustafa cagjar maamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda miyuu sheegayaa war mustafa cagjar wuxuu yidhi mucaaradka madaxweyne farmaajo waan jeclahay dadka madaxweyne farmaajo ammaanana waa nacbaa uu yidhi sababtoo ah mucaaradka dhaliilaha ay ku tusayaan waa sax laakiin ammaanta waa ku dhuminaysaa uu yidhi war etoobiya maanta waddooyinka magaalada addis ababa waxaa laga taagaa layidhi calankii ONLF guddoomiyii ONLF iyo wafdi uu watana waa lagu soo dhoweeyey marka halkaa isbeddel weyn ayaa ka muuqda wargeega may hadheegay langelileeye buush inoo dhimidii hoba liyaarireed hasuus dheerahay idhiidi anii eedan mad bashiirsay imaaday mad maamawsay madi hata ka hor usukuwaay ma erni kasaasana buush welcome buy beese beelisal didyo luwaaya ka ari warnimada waxaan arkay buug uu qoray haaruun macruuf oo la yidhaha inside al-shabaab marka ninkaasi xog ogaal weeye taariikhda wuxuu ka soo bilowday shabaab markay bilowdeen ilaa hadda meeshay marayaan buu ku simay adiga naftaadu intaas haddaad ogeed xaad u qaraysaad hore ugu sheegi weyda war shabaab iyo daacish kalama aqaane shaqaalihii shirkadaha maalinba 4 baa laga dilaa marka shaqaalaha dawladdu waa murtidiin bay u daliishan jireen kuwa shirkadaha maxaa loo daliishaday aryaa meeha dilaa laga rabay ee dilkaasaa loo daliishaday uryaada dadka waddanka tuuniisiya waa soomaali baan u malaynayaa maalin dhawood waxaa tegey maxamed bin salmaan mudaharaad bay kala hortageen waxay idhaaheen dadyowga baxrayn iyo sacuudi iyo imaaraad iyo masar jooga way nala qabaan dhiig cabkaa xumaantiisa waysan oran karin annaga uga mas-uula waa madaxweyne ku-xigeenkii hore Tunisia ayuu ahaa ninka yidhaahday madaxweynaha Soomaaliya imaaraad baa isku day inay ridaan waraadhaha muslimiintii rooyinka ee miyamar ay leenaysay weli alla xasuuqi waa ku socdaa baa laleeyahay waa ognahay maxaa ka qaban karta oo ma ka dhicisi tanyaan meelula neexaan ka dhicinaa wariya masaarmadi mooradii oo dad mooro islaameed oo asal leeyahay may galaasan oo isla mooradan jilin naga taa maalinka taas sunlakiin gas tuf ha ku dishee في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين